maalmo kadib waxaa la soo istaajiyey maxkamaddii waxaana lagu xukumay 128 sano oo xarig ah. sidaa ayuuna maxbuus ku noqday. laakiin arrinta la yaabka noqotay ayaa ah in markii uu xabsiga galay ee dilalkiisa sii bateen, wuxuuna dilay 47 maxbuus iyadoo aysan inteeda badan ogaanin ilaalada xabsiga. gacantiisa waxaa ku qoran waan jeclahay inaan wax dilo. mid ka mid ah dilayaashii ugu halista badnaa ee dunida soo maray, naxariislaawe aabihiis gowracay, wuxuu dilay 70 qof. 10 ka mid ah 70kaas dil wuxuu geystay isagoo aan gaarin xitaa da'da qaangaarka. ninkan wuxuu gacantiisa ku gowracay aabihiis si arxandara ah ayuuna hilibkiisa u jarjaray, kadibna wuxuu la soo baxay wadnihiisa wuuna cunay. subxaan allah. saaxiibayaal, ku soo dhawaada kanaalka Dunida Dahsoon. fadlan haddii aad nagu cusub tahay kanaalka subscribe inoo saar, muuqaalkan inoo like gareey, iskuna day inaad ugu yaraan hal qof sii gaarsiiso muuqaalkan. aadaad u mahadsantihiin. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. ninka aan qisadeena maanta uga hadlayno waxaa lagu magacaabaa Pedro Rodriguez Filho. wuxuu dhashay bishii Juun ee sanadii 1954, wuxuuna ku dhashay dalka Brazil, gaar ahaan beer ku taalo magaalo lagu magacaabo Santa Rita de Subuki. waxaa dhalay aabba aad u dhib badan, micnaha aabba aad u kulkulul oo xitaa xaaskiisa dila. nolosha Filho waxay ku bilaabatay si adag. wuxuuna dhashay isagoo madaxa dhaawac kaga yaal. dhaawacaas ayaana keenay aabihiis oo garaacay hooyadiis iyadoo uur leh. ninkan isagoo 13 sano jir ah ayuu bilaabay ugaarsiga dadka, wuxuuna makiinad sokorta lagu sameeyo ku dhex tuuray in adeerkiis ka weyn, inkastoo laga soo badbaadiyey intuusan naf bixin. balse dilkii ugu horeeyey wuxuu u geystay duqa magaalada ku-xigeenkiisa isagoo 14 sano jir ah. dilkaas ayaana sabab u ahaa in gudoomiye ku-xigeenka magaalada uu shaqada ka ceershay Filho aabihiis, kaa oo lagu soo eedeeyey inuu raashin ka xaday iskuul uu waardiye ka ahaa baqaar ku dhex yaalay. Filho ayaana go'aansaday inuu dilo ninkan aabihiis shaqada ka buriyey, wuxuuna soo qaatay qori uu lahaa aabihii, kaa oo beer ay cid u lahayd ku ilaalin jiray. kadib sidii ayuu u dilay ku-xigeenkii duqa magaalada xilli habeen ah. intaa kadib Filho wuxuu raadiyey tuugii dhabta ahaa ee raashinkaas xaday, sababna u ahaa in aabihii la fadeexeeyo. wuxuuna ogaaday in ninka arrintaas ka dambeeyey uu ahaa waardiye kale ay aabihiis wada shaqayn jireen, kadibna wuu dilay. ninkan ayaana magaalada ka cararay maadaama ay boolisku baadiko ba'an ku hayeen. wuxuu yimid magaalada São Paulo si uu noloshiisa ugu sii wato. halkaa ayuuna ka bilaabay ugaarsiga dadka iyo inuu dhaco tuugada, wuxuuna bilaabay inuu la shaqeeyo kuwa daroogada ka ganacsada. Filho oo 16 sano jir ah ayaa dilay nin caan ku ahaa ganacsiga daroogada kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay. ninkan Filho ah ayaa aaminsanaa in haddii uu dilo qof dambiile ah uu noqon doono nin wanaagsan, wuxuuna bartilmaamaysan jiray kuwa dambiyada waaweyn kala. gacan ku dhiiglayaasha sida Filho oo kale ileen jacayl uu ku dhici karaa. Filho ayaa jeclaaday haweeney lagu magacaabo Maria Olmia oo ay wada noolaayeen ka hor intuusan dilayn nin burcad ah oo u dhashay dalka Brazil. dilka Olmia ayaa ahaa argudasho oo dhibaatooyin u geystay Filho ayaa looga arkostay xaaskiisa, sidaa ayaana lagu dilay Maria Olmia. intaa kadib Filho wuxuu bilaabay inuu dabagalo dhammaan dadkii uu ku tuhmay dilka xaaskiisa. dhowr nin oo burcad ah ayuu soo qabtay, kadibna uu jir dilay isagoo weydiiyey cidda ka dambeysay dilka xaaskiisa. kadib markii ay sheegi waayeen wuu dilay dhammaantood. maalmo kadib wuxuu helay ninkii dilay xaaskiisa, isna dhulka ayuu dhigay oo kuwii hore ayuu ka dabakeeyey. Filho ayaa ugu dambeyntii la xiray 24 Maarso 1973 isaga iyo nin kale oo kufsi ku eedeysnaa. su'aalo kala duwan ayuu weydiiyey intii ay kaariga wada saarnaayeen, kadibna ninkii waa uu ka takhalusay, micnaha kaariga ayuu ku dhex dilay ninkii. intaa kadib markii saldhigga booliska la tagay oo la furay albaabka kaariga, waxaa la arkay Filho oo wada dhiig ah iyo ninkii kufsiga ku eedeysnaa oo meyd ah. askartii oo yaaban ayaa Filho weydiiyeen sababta uu u dilay ninkan, wuxuuna ku jawaabay aniga ma jecli inaan arko qof dambiile ah. maalmo kadib waxaa la soo istaajiyey maxkamaddii waxaana lagu xukumay 128 sano oo xarig ah. sidaa ayuuna maxbuus ku noqday. laakiin arrinta la yaabka noqotay ayaa ah in markii uu xabsiga galay ee dilalkiisa sii bateen, wuxuuna dilay 47 maxbuus iyadoo aysan intooda badan ogaanin ilaalada xabsiga. mid walba wuxuu weydiinayay sababtii loo soo xiray ka hor intuusan dilin, wuxuuna si gaar ah u ugaarsanayay kuwa kufsiga iyo dilka loo soo xiro. Filho wuxuu sidaa ku sii socdaba oo ugaarsaday dambiilayaasha. waxaa la soo gaaray maalin madow, waxaa la soo gaaray maalin isaga iyo qoyskiisaba u ahayd maalin madow, maalintii ugu xanuunka badneed noloshiisa. maalin uu cunay wadnaha aabihiis, maalintii uu maqlay in la gowracay hooyadiis. maalintan waxaa dhacday mid ka mid ah dilalkii ugu caansanaa
uguna foosha xumaa taariikhda. Filho ayaa markaan dilay aabihiis. oo sidee ayuu u dilay? Filho miyaa xabsiga ka baxsaday kadibna aabihiis soo dilay? Maya. odayga ayaa maxbuus noqday. Sababta loo soo xirayna waxay ahayd in xaaskiisa uu dilay ama Filho hooyadiis uu dilay. Filho ayaana maalmo kadib ogaaday in sababta aabihiis loo soo xiray ay tahay inuu gowracay xaaskiisa, waa isaga hooyadiisa. Kadibna wuxuu go'aansaday in hooyadiis u argudo oo aabihiis uu dilo, sidii ayuuna sameeyay. Xilli habeen ah ayuu mindi uu ka soo helay maxaabiis kale ku gowracay aabihiis, kadibna hilibkiisii ayuu habeenkaas oo dhan jarjarayay. Wuxuu cunay wadnaha aabihiis, isagoo dib ka sheegay inuu ku raaxaystay dilka aabihiis. Pedro Rodriguez mar kale ayaa la maxkamadeeyay, waxaana loogu daray 270 sano, wuxuuna xukunkiisa noqday 400 oo sano oo xabsi ah. balse markii la eego sharciga u yaal dalka Brazil, muddada ugu badan ee qofku ku qaadan kara xabsiga waa 30 sano. Sharcigaas ayuuna ku badbaaday Filho, balse Filho ayaa 4 sano oo dheeri ah ku qaatay xabsiga maadaama uu daliilka dhex geystay gudaha xabsiga intii uu ku jiray. waxaana la sii daayay ama maxkamaddii ay fasaxday sanadii 2007, wuxuuna xor ahaa ilaa sanadii 2011. xilligaas oo mar kale la xiray oo uu ku jiray xabsi guri ilaa sanadii 2018. intaa wixii ka dambeeyayna ninkan xornimo ayuu ku noolaa, inkastoo dowladda Brazil ay arrimihiisa kor kala socoto. Filho ayaana sanadkii hore qabsaday shaashadaha caalamka kadib markii uu kasoo dhex muuqday YouTube laga leeyahay dalka Brazil. wareysi dheerna halkaa ka bixiyay kana sheekeeyay qaabkii uu dadka u dili jiray, isagoona sheegay ilaa hadda inuu jecel yahay inuu dilo dambiilayaasha. saaxiibayaal, halkaas ayuu ku eegay muuqaalkeena maanta. haddii aad ka heshay qisadan, jeceshahayna inay kuu soo dhacaan qisooyinkeena dambe, fadlan subscribe inoo saar, muuqaalkana inoo like gareey. sidoo kale taageero inoo muuji oo 1 ilaa 2 qof intii aad awoodid gaarsii muuqaalka. mahadsanidin saaxiibayaal, mac salaama.